برعنا وحبي يلا قرن والجو كرباشة برعنا إحنا الجو كرباشة رماح وحن كل شيء عضو وهي هرت توتل متر أنت قبنا إذا أنا وقبله شبعانة أيام موسى قبنا يا عبد الرحمن إيه رمر كنت صيحية توسيني dad badan oo shibcaanay hadallo dhaliila xisbiga wadani u jeediyay madaxweynahana ammaanay waxay yiraahdeen farteedii baanu aadnay hadalka baad jeedinaysaa ma laga yaabaa in maalmaha kamid ah ay shibcaan wadani iska xaadiriso oo ay farteeda aado muusana waa reerkan ku jiro uu kamid yahay gacmo wada jir bay wax ku qabsadaan horta tii reerka ahaan baan kaga hadlay muusana reerku marka horeba muuse hel maantana waa muuse runtan ku sheegaya horaa loo yiri xabaali xigta kama doonto subeer wal waa mid dal iyo dibad meel kasta joogaan aad baan u hambalyeynaya waxaan ku hambalyeynaa sidii sharafta lahayd ee quruxda badnayd ay u qabsadeen xuskii ay tiin meeyda saddexdan guuradii oo sanadkan iyo sanadadii hore ay kala duwanaayeen taasi oo adduunka daafihiisa meel walba laga xusay tii u dambeysay oo xalay ku hambalyeynayo dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada madaxda Addis Ababa oo xalay tole aad xuska duwan xusaskii ay tiin meeyda lagu qabtay oo wafdi badan ay ka qayb galeen waxaan leeyahay hambaliyo safaaradda Itoobiya oo si fiican u agaasintay xalfada iyo kan aad baan u hambalyeynaya inta kadib maanta halka waxaan fadhiyaa inaan shirkan jaraa'id aan u qabanaya waxa weeyaan inaan ka hadlo danaha reerkan ka hadlayna maanta waxa weeyaan beelweynta Baha Muuse Subeer oo maanta doonayna bartan kala hadlo oo cod dheer iyo cod gaaban baa aan kula hadlayo maanta alxamdulillah ilaahay baa ii suurta galiyay haddaan ilaahay ii suurta galin maan hadleen waxaan leeyahay beelweynta Baha Muuse aan ka soo jeedo horta Subeer oo saddex dhadhaar weeyaan waxa weeyaan waa Ciise iyo Saacad iyo Baha وعيسى موسى يساعد موسى بها موسى الحمد لله رب العالمين بيلوي ويان إلهي نقدر أو سيديد ويان سبير أول مركب ما أنت وحن كهلا تير كم تير شيء سبير أول أو بها موسى وحن لا بها موسى وحجرتك أخويا هنك عقاشة دلين يرضى قناعة هذا ميرك استويشوجان دل يديد بقى إن هو ذا كتشدان أو يشير سكوجي معدان سي أي مستقبل كأيها يدنت هذا أو كتشدان maanta waqtiga wad arkaysaan iyo waayaha taagan waxaan leeyahay si degdeg ah iskugu yimaada oo tashada oo dalka iyo dadka iyo danta reerka wixii ku jiraba aad tashada baan leeyahay isku yimaada taas maanta meesha soo fadhisay waxaan leeyahay sida ugu dhaqsiyaha badan leh hawsha loo bilaabo shir degdeg ah la isugu yimaado Baha Muuse ay leedahay taas oo ka hadli doono anagu aayaha reerka insha Allah Rahmaan oo leeyahay doorkii aqoonyahankii waxa la idinka sugayaa reerka mustaqbalkiisii aayihii iyo wixii noo qabsoomay iyo waxay noo qabsoomi doona insha Allah Rahmaan ummaduna wada jir iyo wada tashi ayay wax ku gaaraan aad iyo aadna waan idinku bogaadinayaa maanta intaas meeshaan u soo fadhiistay intiina waxaan leeyahay degdeg hal isugu yimaado beelweynta Baha Muuse Subeer waxaad halkan shir degdeg ah isugu baaqday oo ugu baaqday isugu yimaadaan deegaankaaga xagee haw codeeyaan baad leedahay ma Muuse dhisayaan ma mucaaradkay dhisayaan warkaaga faahfaahiyo waxa la isugu imanayaa muxuu yahay bismillaahir rahmaanir rahiim su'aashaas dad weydiisan kaaga jawaabo marka hore nin walba danta reerkiisu ka tashada muusana waa reerkan ku jiro uu kamid yahay gacmo wada jir bay wax ku qabsadaan horta tii reerka ahaan baan kaga hadlay muusana reerku marka horeba muuse hel maantana waa muuse runtan ku sheegaya horaa loo yiri xabaali xigta kama doonto subeer wal waa mid marka waxa leedahay musabixi baan dhisana anagu horana waan u dhistay maantana isaga u taaganahay laakiin ma waxaad ku dooranaysaa musabixi hab qaybiyaaladaysan mise afkaar iyo ra'yi iyo waxyaabo kale ku dooranaysan baa jira su'aashaas waa su'aal aad u iisiya horta maanta maaha Muuse nin qabiil waa nin qaran waa madaxweyne qaran waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo beel kasta Soomaaliland degan tahay oo madaxa anigu hab qabiil kuma dooranayno waxaan ku dooranaynaa hab dimuqraadiyadeed oo ah nin dalkan wax gashaday soo taray maantana taraya tusaale kaliya ka siinaya madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi dadku in badan bay hadal iyo dhaliil ay soo jeediyeen waan aad iyo aad u sabray todobadaas sano waxay wuxuu la kulmay dhibaatooyin fara badan u darnaa COVID-19 oo dogayd maanta dhibaatada dhinac walba dagaalka iyo kaga socdo nin maanta ka bixi karoon isaga hayna horta totally ma jiraan waxaan ku dooranaynaa maanta isbedelka wadanka ka muuqda wad arkaysaan dhulka horumarka adduunka quruxda inta ba socota dadkeena ilaahay wanaaga waa ka qariyay horumarka aad arkaysaa muxuu yahay shibcan bulshada u sheegado horumarka waxa kamid ah
tusaalaadiisina waxa kamid ah dhalinyartii bilaa camalka inta u badan shaqo qaran buu sameeyay waad ogtihiin oo shaqo qaran hawshay wadaan halkii Allah u naxariistay madaxweyne Axmed Maxamuud Siiraaye xusbiga kulmiye hoggaanka waxa uu kaga tagay isagoo horumar badan gaarsiiyay ayuu muusana ka sii qaaday waxa kamid ah DB1 wadooyinkeedii adeegoydeen rafka u badnaa iyo dhibaatada badneed taalay waad ogtihiin maanta berbere inta lagu tagay alxamdulillah galbeed inta lagu tagay sababtana muuse alxamdulillah rabbil caalamiin xusbiga kulmiye dalku ma galbeed iyo berbera hayga dhexgelin walaal hayga dhexgelin waad ogtiin baan ku ri Axmed Maxamuud Siiraaye horumarkii uu bilaabay oo muuse si jaan qaaday ilaa ceerigaabo maanta dhulku waa laami ceerigaabada ogeedan dhibaatada badan iyo rafka badan iyo miscisho jidka lagu jiri jiray ما ساك هذا بحثي قلنا كده بوقت جلسة عرقابه ما أنت الحمد لله تاسنا وحصبي حسبي كل مية. وين لكن واحد أركي الناس سياسيين بدل أو كسر شيء مكدد كان هذا باقي سنين يشير شوي معدانة وما المي يقدم بيك بحي حسبي كل مية أن تاجرين وموجين مرشح حسبي وطني أن عبد الرحمن عرائي حسبي وطني مركز سياسيين بدل بحسبي كبحية أظن مرا ولين بعد كشرتها. أنت صارك اليوم كسينا يا وسؤال هذه هذه مهمة. horta reerkan u baaqay wareerka bahamuusay hal qof oo bahamuusa ka tirsan kuma jiro xusbiga wadani soo ramax baa u dambeeyay galayma waa ciise muuse saddex dhadhaar weeyaan subeer waa 8 haamood subeer wal reerka ciise muuse ramax wixii kaga qabsaday sheekh degmadu sheekh uu tagay wixii ka qabsaday waad ogeydeen sida ballaaran burco lagu soo dhaweeyay ma habeennimadii burcana waxba yaa la qarin waa lagu karbaashay burco dhexdeeda lagu karbaashay ramax waxaan ku sheegay cod uu haya horta total ma jiro waa nin nasiib daran maanta taswaasha di weydiinaysa reerkan ugu baaqay bahamuusana hal qof oo jooga halkaas total ma jiraan haday joogaana waa xabad anaka meelaha ka tuugaysa u dhan yihiin bahamuuse beelweynta bahamuuse waa xusbiga kulmiye laakiin siyaasiyiin badan oo gobolka saaxil ka soo jeeda ciray taageersan yihiin ciray dhisayaan dadka adigu ma aragtid miya in yar baan kugu daray subeer awal reerka naga carcarre marka horena ku jiro waa Cabdilaahi Sandeer iyo dhowr qof oo wato ku darso oo reerka Saacad Muuse sheegaysidna waxa weeyaan reer shirdo reerkii Xuseen Boqor shirdoona saddex qof oo meelaha ka soo kaxeeyeen la arkay waa intii hore ugu jirtay sawiradan dambe soo dhigeen shirkan dambe loo qabanay hore ugu jireen maanta kuma jirnay ina biixiyo markuu ka tirsanaa intii ku jirtay uma ku jirta waxaan leeyahay subeer awal waa mid adar xabaal bixitay doontay anagu danta reerkaygaan ku tashanayna xusbiga kulmiyana wax qabadkiisa qabiil kuma dooranay wax qabadku noo qabtay ayaan ku dooranayna kaliya oo la arki kara maanta waxa weeyaan anigoo wixii dhamaayo kala soo sheegay Cabdikariin Axmed Mooge sababtiisa waxa lahaa Muuse Biixi Cabdi maalintii ay la isagoo ka soo baxay xusbiga wadani lagu wari ma geydid la yiri sidii sharafta lahayd Cabdikariin Axmed Mooge oo hadlay madaxweyne waxaan ka codsaday soo gaadhay uu si degdeg madaxweynuhu uga jawaabay uu hal loo tanaasulo Cabdikariin Axmed Mooge hal oo noqday sababtiina waad arkaysaa maanta Muuse Biixi baa iska leeyahay xusbiga kulmiye quruxda iyo wadankana waad arkaysaa maanta taala laakiin dad badan oo shubcaanay hadallo dhaliila xisbiga wadani u jeediyay madaxweynahana amaaray waxay yiraahdeen farteedii baanu eednay hadalka baad jeedinaysaa ma laga yaabaa in maalin maalmaha kamid ah ay shabcaan wadani iska xaadiriso oo ay farteeda eedo alxamdulillah maanta waa aad kelmad wanaagsan oo in badan doonayna ka hadlo horta dadka fartooda eeday horta madaxweynaha qaranku kelmadda uu yiri sax buu ku ahayd wuxuu doonayay Soomaaliya la wada leeyahay kii doortay iyo kii aan dooranba way ismeeyeen buu lahaa nin walba soo doona hawrago laakiin isagu wuxuu ka hadlayay uu ka shaqeynayay madaxweyne qaran iyo cadaalad ku shaqeynayo si loo rogay ka maanta carrey hadalada alayna waa ka doonaya dooni qaataha waa ka doonaya halkan inuu ka cuno halkan uu ka cuno waa la diiday wixii la cunayay ayr waa la joojiyay aan runtan ku sheegaya adduunka waxa ugu qaalisan kullukum raaci wa kullukum mas'uul can raaciyati qof walba waa mas'uulka yaani waa la weydiina maanta qiyaamaha madaxweynaha qaranka ummadda Soomaaliland mas'uul buu ka yahay cadaalad buu doonay inuu sameeyo laakiin dadkeenu ma ogola cadaalad waxay doonayaan in iyagu kaligood xunaan tiina way dhici weeyay taas ayna u leeyihiin fartoodeeday laga mana yaabana shabcaan meel aan kulmiyahayn iska xaadirso anigu kulmiyaan ahaanaya waxaan ku taagay xaq baan leeyahay ka hadlo qof walba raygiisu hadlaya waxaan u hadlayaa maanta uga hadlaya xaq baan leeyahay hooyo caruur dhashaanahay hooyo ka hadlay cashuur bixisaan anigoo business na cashuur bixiya waxaan ka hadlayaa wax qabadka fiican ee cashuurtan bixin ee lagu gelinayo wadanka aad baan ugu faraxsanahay maanta marka waxa la lagama yaabo inaan dadka fartooda eeday ee wadan iska xaadiriyaan noqdo dadka fartooda waa dadkii doonayay in loo antoobiyo suurtagal inuu noqon Soomaaliland waa mid ayuu ka dhigay siman tii doonayay inay wax boobto ayaa wadan iska xaadiriyay ilaahayna inaguma ogaa laakiin bulshada gobolka saaxil deegaanka waa ee degtay ugu badani sanadkan waxay leeyihiin waxaan dhisaynaa Cabdiraxmaan Ciro siyaasiyiin badan baa iska xaadiriyay oo xildhibaano leh oo siyaasiyiin hore leh oo kuwa hore sii joogay leh xisbigii wadan iyo gobolka saaxil waa la isfahmay baa leeyahay adiga arrintan aad ku baaqaysaa xagee ka socotaa hal su'aalan ku oranaya waxay Soomaalidu ku amaadaa nin ku lisay
nin aan kuu lisiin ku rarin ayay Soomaalidu ku amahada gobolka saaxil waa gobol aad u balan deegaan balalayaan waan degaa anaa degaa tusaalaan ku siinaya horaan kugu sheegay oo weydiisay waad igu soo celisay waa afar fare ku tirisa afartii fare ku tiriskiyo kii ugu dambeeyay ramaha Cabdullaahi Sandeer kii ugu dambeeyay ramaha wixii kaga dhacay waad ogay degmada Sheekh maxaa ku dhacay bulshada Sheekh ramaha maxaa ku dhacay waxa ku dhacay nin walba uu arkay ma wax taxsoon maaha berbera waa la yaqaan waxay tahay sheekh intuu dhex istaagin waa tii lagu qayliyay sidii lagu ciyaada geydeen umaduna intahay wax ku arkaan wax walba wuxuu yaala hortooda wixii kaga dhacay ramaha waa looga iyo xisbiga wadani taa cidna idii sheeg mayso laakiin waxaan ka hadlayaa anigu afar taxab iska socdo aakhirka cid ay noqonayaan umana warwarayo xisbiga kulmiye waxaana leeyahay ninka anaga wax noo qabanaya ayaan raacayna qabiilna cid kuma dooranay dimuqraadiyad ma ku dooranayna way hadaa dimuqraadiyad ku dooranayso maxamed Cabdiraxmaan Ciro dooran weeyay tusaalaan ku siinaya Cabdiraxmaan Ciro iyo Muuse waa yimid aniga waa ismii waa labadeeda gacmood labaduba laakiin maxaad ku kala doorataa ku kala dooranayaan jawaab kaaga siinaya maalin alla maalintii waxa dhacaan qaranka waxa difaaca Faysal Ali Waraabe iyo Muuse Biixi Cabdi inta la halmaasha iyaga maxaa looga waayay markay wax dhacaan markay umadu ay doonayaan hiil iyo garab maxaa iyaga looga waayay garab iyo hiil iyo calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland garabka laakiin iyagu waa xisbi mucaarada dawladda loo xil saaray dawladda wixii difaaca qaabilsan moogta Faysal Ali Waraabe miino ahayn xisbi mucaarada miino ahayn waxa ku dheehan jirkiisa iyo jisbigiisa muwaadinada waa nin ehlu qaran waa ehlu sharaf waa ehlu karaamo hadama ciraan ehlu qaran hayn marka maaha أنا كوديده ما هو إحنا وهاي ما كوشة جريسك أنا كوشة جيده إحنا وهاي محاول ديده مركي ما أنت ما أي تاجن أي Soomaalida Itaaliya ay hadlayso anu ma naqaanay Soomaaliya Itaaliya markay hadlayso sababtu dadkiisa u garab istaago uu hiilin way maxaa u diiday waayo waa nin la dhashanaka waa nin garabkayga waa nin kan u baahanay berito inuu difaaco waa nin berina xil qabta la doonayo maxaa u diiday in han buu rabaa Soomaaliland inuu qabtee sidee maanta looga waayay berina waxba ay qaban maayo berina isaga ay geenay meesha marka maanta tan u diidanahay waa taa hadduu maanta garab istaago hiil iyo hoob aan ka helo uu qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland difaaco de Muuse waa madaxweyne shakhsiya qaranka ka weyn qaranka ninkii difaaci lahaa maanta hadduu xagga dambe galay de berito waxba kama sugayo taasaan u difaaci waay taasaan u dooran waay maanta tusaale kale ku raacinay habeen kilib la soo dhigay habeen dawlad xirsi de ma difaaciyo lahaa Soomaaliland ma difaaciyo madaxweyne dawladda waa xil saaran yuu yahay dawladdu sheegay hore ayuu soo maray inqilaabkii ugu inaa Soomaaliland ninkii ridiib waxa uu taagalay in Soomaaliland burburto way hadii doorasho maanta dhacdo Soomaali hadii doorasho maanta dhacdo oo wadani iyo kulmiye iyo cudba tartamaan ma isleedahay madaxweyne Muuse Biixi waa laga badanayaa doorashada taas waa waxa aad iyo aad u fudud walaalo wax walba xagan ka qorayeen waxa la yiri qofku iimaan haduu yeelan waayo waa ayaan daraw iimaan baan leenahay waxaan wax qoran wax Ilaahay qoray hadii Ilaahay ugu qoray Muuse waa yeelaya haduu Ilaahay ugu qorna demeeliyo Cabdiraxmaan Baali haduu Cabdiraxmaan Heliyo Faysal Baali waa muhiimad waa inta laakiin tusaalan ku siinay waa in adigu aamintid waxa maqan ee qaybka adigu kama sheekeyn kartid waxaan waa wax qayba cidii helna Allahu a'lam laakiin walba rituraba way ugu dambeyn sidaan la wada socono meel dhaweed waxa hadlay maayirkii hore ee degmada Burco Cabdirasaaq Khayro wuxuu yiri madaxweynaha Soomaaliland yaa qabanaya Cabdiraxmaan Ciro anaga qabanayna bal hadalkaas adiga sidoo kula muuqda wallahi hadal aad u fiican buu ahaa horta goobta nasiib wanaag waan ka maqnaa oo maan joogin hawla aan ku maqnaa shaqo darteed aan ku maqnaa hadalkaasi hadal uu iska yidhin bay ahayd horta isaga waxaan weydiinay su'aashan weydiinay wax weeyaan Burco wuxuu kaga tagay 3 milyan oo deyna 3 milyan oo deyna halkuu kaga sheekeynaya laakiin Burco maxay ku cuntay maxay ku galabsatay su'aasha horta iga jawaabo talabaad waxaan weydiinayaa Cabdiraxmaan iyo Muuse waa mid inta qabanaysa anigoo gabadho Shabcaana ayaa Muuse qabanaya Cabdiraxmaan Ciro markuu seexdiya toosinaya su'aashaas isaga weydiinaya Cabdiraxmaan markuu seexdo yaa toosinaya Muuse anoo gabadha qabanaya way laakiin hadda Muuse Biixi dad badan baa sheegay inaan u gali kareen be sidee baad adigu ugu galaysaa adigu qaban karaysaa waxaan ku sheegayaa Muuse waa nin qabsooma wax diidaa laakiin waxa la istixgalgelinayo ee istawa mar kale tusaale kaliya ay siinaya wala dadkan waadii weydiiyay fartayda eeday baa la lahaa dadkii hunguriga ku socday ee wax guranaya ayar la xiran waa laga raystay alxamdulillah Muuse waanu galay cidna ma diido cid walba waa qaabila ana oo Shabcaan Ismaaciil Umar oo isagu Ilaahay biyo waalid waliba yihiin oranaya ummadda waad ka qaldantay ka fadhiiso waayo rasuulku wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam walaalka haduu gardaran yahay oo gargaar hadii laga gardaran yahayna u gargaar way muxuu ku qalday maanta asxaabtu waxay weydiisay
يا رسول الله هدو قردرين هاي سنة قرقرنا وما تك قبالي لو فريسو هدو موسى قلدين ما هو إنه قلدين هاي ما أوجي لكن هو إنسان وقلدم يكره وبلاده وأنا مدحوينه قرر عيد والبط صالي تليه صالة ويسين كرتها وأنا شيء وحنا يا واد قلدنت مدحويني قرن بعتيه كده ونيقب صومية لكن تصالنا نسينا موسى وشخصي شليمت برن إدلي قرتجية محاكسي السجبر أن ويديو سجح دي مليون قبل كبرعه أو أكتهي باهي هذي كاركها إني بابين وما أنت واحد لو يحقق قبتي أنا شري هالكم مريب عن سجى كربنا برعه عبد الرزاق تيمد ويا طي ما يردي كليكو الروي كقرح بدنا برعه زي ما أنت أنا مركي السجو ولا وريجي برعه وحكد ما يوحبكم مدرين السجى هل ويدي سجح دي مليون العقد هالكم مريب way haddii maanta muuse bixi bal adigu haddii tusaale waadigan loo ana qabanaya maanta wuxuu ku qalday ma garanaysaa oran lahayd bulshada waxa muuse bixiya xukuumaddiisa waa ku fashilmeen horta waxaan aaminsan waxba ku fashilmeen waxba dadkii afmeeshaarinta ahaan baa wax fashiliyay hadallo badan baa aan doonaya inaan sheego laakiin ma doonayo waxba la reebtaa waxba la asturaa waxba la qariya waxaan ka codsanayaa in aanan halkan aanan kaga hadin su'aalaha qaar koodna adii weydi waan kaaga jawaabi lahaa laakiin waxa la wuxuu ku fashilma jiray waxa la diidan yahay sida dhabta uu sharciga ugu adag yahay dadkeenu ma ogola runta marka loo sheego hal tusaalan ku siin qof maanta anigu shabcaan hadaan runta u sheego oo uu arkayo uu ka madoobaanaya laakiin waxa iisiyo xaaraan ugu cuni karaya dadkeenu waxa ku adag runta ilaahay laga boqor runta la isku sheego ul amrigana xaq baa inaguna ul amriga aan dhageysano ka yimaado haduu bari ciireemaado waa madaxweynaheena oo uu noqdo waa ul amri buu inuu yahay ixtiraano kamaanta jooga xaq buu inagu leeyahay ixtiraano lama ba ixtiraamay meel walba laga qayliyo runta marka laga hadlo Faysal Ali warab haduu yimaado waa ul amri aan la ixtiraamo xaq buu ugu leeyahay waana nin qaran waana nin jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka codsanaya dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland inta Allah laga qabsado war madaxda in hogaaminaysa leadership kayno ah ha laga dambeeyo